السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلي waxaan ku kala tagnay halkudheg aad u culus aan ku kala tagnay shalay halkudhegaasi wuxuu ku wajahnaa dhalinyarada maanta sida wasiiradu hadda hortiina ay ka akhrisay dadkii la baaray oo laga helay 75% waa dhalinyaro waa 20 ilaa iyo 39 jir hadda dhalinyaro shalay marka halkudhegi wuxuu ahaa ha noqon dilaaga daahsan waxaan ka wadnaa ma ahan in adigu aad dilaysid ama rabtid waalidka iyo dadka kale inaad dishid waxay tahay cudurkii adoon waa qaybinaysaa adoon taxadirka badan sameyn ayaa dadkii waayeelka ahaa ama aabbaha ku ahaado ama hooyo ahaado ama awoow ahaado ama ayeeye ahaado ama dadka waayeelka oo deriska ama adiga ayaad muxibadii aad u qabtay iyo ixtiraamka aad u qabtay ayaad la aadaysaa marka taas la aadidna waxaa dhacaya marka in ayagii inay dhiikar qabaan inay sokor qabaan inay sanbabka ka jiran yihiin oo TB qabaan ama inay neef qabaan arrinkaas marka maxay keenaysaa arrinkaas waxay keenaysaa marka in cudurku u gudbiso ayagiina difaac aad u leedahay ma laha hadalku marka ujeedadiisu waxay tahay ha noqon dilaaga daahsan macnaha midka aad kama warqabtid waa qarsoon tahay laakiin waxba dilaysaa taas waa midaas dhalinyarada marka waxa la rabaa inay dadaalaan haday maanta shaqadooda yimaadeen oo guriga laabanayaan dharka haday meel dhigi karaan iska dhigeen gacnaha si fiican iskaga dhaqeen waxa la rabaa inay saas yeelaan oo dharkii meel iska dhigaan oo aysan waalidka u tagin ilaa ay joogaan aysan waalidka u tagin waalidka ha lagu la hadlo smartphone ha lagu la hadlo waalidka zoom ha loo sameeyo hala casriyeeyo anu intaasan ku talin oo dhalinyarada aan leeyahay walaalayaal waxaad arkaysaan maanta cudurkii xamar kaliya kuma sugnaa maanta cudurkii waa faafay meel dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo dhan waa wada gaaray hadda ma fiirsanaynaa marka wacyigelintaydu waxaan rajaynayaa iyo dadaalada la wado dhan oo wacyigelinaha oo maanta xamar aad uga socda in ayaguna gobolada saa uga socdaan waxaan codsanayaa dhakhaatiirta meel walba ay joogaan inay ka qayb galaan wacyigelinta inay wadaan waa wadeen waa ogahay telefishin waa taagan raadiyo waa taagan in la sii shanjibaaro ayaan codsanayaa waxaan leeyahay neeriska meel walba aad joogtaan hore u soo baxa dadka waxa loo sheego dadka waxa la rabaa qof buu maqlayaa nabiga kaleey salaatu salaam xusuusta aayadda quraanka wa andir cashiirataka alaqrabiin alayhi wa andir cashiirataka alaqrabiin qof walba qofka uu dhow oo wax ka maqlahayo oo uu saameyn ku yeelan karo inuu waxa la rabaa gaaro oo la hadla maanta cudurkaani cudur la yaqaano maan adduunka dhan lama yaqaan hadii la aqoon lahaa adduunka dhani waa iska qaba lahaa waxaan rabaa inaan idin sheego cudurkan wuxuu tilmaamay in adduunka hal tuulo yahay bal u fiirsada hal tuulo yawmal qiyaamiyaan joognaa wallaah waxba naga baxgaan oo malaynaya hal tuulo ayuu noqday cudurka ka bilowday China maanta 4 geesu aad meelus aad maxaa geynaya safarka tirada badan la geynaya intaas kumayaal diyaaradood ayaa cirka maantaas wada maraya qofkaas oo iska warqabin ayuu cudurka qaabahaya meel kala geynaya annagana waa sidoo kale gaadiidkeena annaga waa iska socdaa diyaaradii waa ogahay in la hakiyay laakiin baabuurtu waa socotaa basaska waa socdaan wax walba waa socdaan annaga marka Soomaaliya hadaan nahana Ilaahay wuxuu nagu ibtileeyay dhaqankeena wuxuu yahay isku soo dhawaanshay iska warqabid dhaqankeena kale waxa kamid ah safarka suulku cirre waxa la yiraahdaa qofka safarka badan galay marka waa ogtihiin inay dhaqankeena tahay inaan safarno ama miyi aan ka keenno ama magaalo aan joogno ninka Soomaaliga waa safraya safarka waa jecel yahay safarka ka caajisi maayo marka waxaan dhihi lahaa aan dhamaanteen maqalno warka aan islaanahay oo maxay tahay ha noqon dilaaga daahsan hadaa dhalinyaro tahay hadaa waayeel tahayna bil calaak dadaal oo gurigaaga meel calaamadayso meeshaadaas iska joog ilmaha waxa tiraahdaa in kala daaya aniga idinka aan korkaas ka sheekaysano intaasan ku talin ilaahayna waxaan rajaynayaa in ilaahay cudurka naga dulqaado anaguna astaghfirullah ida abadino wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh